haddaad wadaad kitaaba soo akhrisay tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato. haddaad oday tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato. dad dhallinyaro tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato. waayo qofka insaanka la yidhaahdo ayaa qummanida tooska ahi ku dhib tahay oo aan ka maarmin in wax la xasuusiyo. walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa masaajidku ku wacdiyi jiray oo suuqu ku wacdiyi jiray oo xabaalaha dushoodu ku wacdiyi jiray oo meel kasta wacdigu uu ka socday. suuquu soo maray xadiiskii saxiixa ku yaallay. dabeetana suuqii wax lagu kala iibsanayay markuu marayay buu arkay orgi yaroo bakhtiyey. intuu nebigu dhegta qabtay, waa orgi yaroo dhukan dhaga yaryar, intuu qabtay buu wuxuu yidhi kan yaa dirham siistay. waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo cidna kan dirham siisan mayso. waryaa dirham siistay buu nebigu ku celinayaa. markii cidi juuqi weyday ayuu wuxuu yidhi haddaba yaa bilaash ku qaadanaya, yaa kan bilaash ku qaadanaya. waxay ugu jawaabeen ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu noolaan lahaa buu muciib yahay, ayuu mid ceebayay. innahu asak bay idhaahdeen, waa dhukan yahay. orgiiba buu marka horeba ahaa xoolaa dhadigaa la jecel yahay, kani waa marka labaade ceeb buu leeyaho xataa orginimo loola hadhaya maaha oo qiimihii in xoolaa lagu darsado wax ka dhala maaha. saa daraaddeed ba waxay idhahdeen marka horeba asak iyo aanu qiimo lahayn ee kii oo bakhtiyey maxaa lagu falayaa. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay adduunka aa ku mashquulka tihiin oo dhan ilaahay agtiisa kaa waa kaga qiimo liitaa. addunya kullaha daaraan dhistay iyo xoolaha shaqaystay waxaa wadaan oo dhan haddii laysku daro adduunkaynu mashquulku u dhahay orgigaa bakhtiyey waa ka liitaa buu nebigu yidhi. yacni wuxuu nebigu rabaa inuu dareensiiyo aakhiradooda waxay geystaan inuu yahay waxa muhimka ah. xabaal iyadoo nin saxaabiya la aasayo xabaashii la qoday oo aan weli luxudkii la jeexin buu wuxuu ku yidhi uu dhulka ku xarxariiqay nebigu. xadiidka imaamu axmed baa soo saaraya. dabeetana wuxuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam istaciidu billahi min cadaabi alqabr, istaciidu billahi min cadaabi alqabr, istaciidu billahi min cadaabi alqabr. waar ilaahay ka magan gala cadaabulqabriga buu nebigu yidhi. ilaahay ka magan gala, ilaahay ka magan gala, ilaahay ka magan gala. waxay taasi tilmaamaysaa goob kasta joogo inaad wacdi u baahantay. xabaalaha in laysku wacdiyo oo suuqa laysku wacdiyo, shaqada laysku wacdiyo oo masaajidka laysku wacdiyo. waayo nafta bini aadamkaa tadabdub badan, bini aadamkaa weecweecasho badan, bini aadamkaa qumanidu inuu one line haystaa ku adagtay. one line inuu taagnaadaa bini aadamkay ku adagtay. sidaa awgeed ayuha alaxiba wacdi kama maaranno. wakhtiga kooban daraaddeed qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa in ayaamaha dadka lagu wacdiyo iyo taariikhda, iyo qur-aanku taariikha aad u ballaadhan buu ka warramayaa. walaqad calimtum aladiina اctadaw minkum fi الsabt faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin fajacalnaaha nakala lima bayna yadayha wama khalfaha wamawcidatan lilmuttaqiin baa ilaha yidhi. qisaskii dadkii hore inta rabbi ka warramay duul la halaagay oo daayiro laga dhigay ayaa waxaa rabbi leeyahy waxaanu ka yeelay nakaalan lima bayna yadayha wamaa khalfaha, ay cibra miday kuwaana qaataan baanu ka dhignay baa rabbi leeyahy. kuwii joogay iyo gadaasheed dambe kuwa yimaadaaba waxay ku cibro qaataan, iyo wamawcidatan lilmuttaqiin waxay ku waantoobaan inta alla ka cabsanaysa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wakullan naqusu calayka min anbaa'i arusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak wajaa'aka fi hadihi alxaq wamawcidatun wadikra lilmu'miniin. ambiyada qisaskeeda iyo rusushaa kaaga warramayaa baa ilaahay leeyahy si qalbigaaga loo dejiyo. diinta tanna qur-aankanna xaq baa lagu soo dejiyey iyo mawcida iyo wadikra, wax waana u ah iyo xusid. ilaahay wuxuu qur-aanka ku sifaynayaa hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidatun lilmuttaqiin. idan ayuha alaxiba waanu kama wada maaranno, dhammaanteen in layna waaniyaa baynu u baahannay.
قرآنك إلهي وحين وغورما يسوع أنبياء وانينيا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين بإلهي كيري نبي الله نوح ونبيه يا إلهي لي إني أعظك أن تكون من الجاهلين وحنكا وانينيا وحمقرت ضينة كبير طبع إلهي كيري waxaa qur-aanka ilaahay kaga warramaya dadka mu'miniinta ah maray gaf ku dhaceen xadiida tilifkiiyo wixii la mida yacidukum allahu an tacuuduu limilihi baa ilaah yidhi war ilaahay wuxuu idinka waaninayaa inaa waxaasoo kale dib ugu noqotaan limilihi abadan in kuntum mu'miniin waxaa qur-aanka ilaahay inooga tilmaamaya kufaarta in la wacdiyo waayo iyagu waa asxaabi alquluub bay yihiin waa bashar wacdigu dadka badh baa u haysta caamada in la wacdiyo war ama brofesor ha ahaado ama miskiin suuqa jooga ha ahaado waa insaan ma dhaafo kasrat almacluumaat ma beddesho insaannimada ثaqaafo badan inaad xambaarsantahay macnaheedu maaha inaad bini aadamnimada ka baxday waaba ha is afuufin oo ha isbuufin dadka badh baa u haysta hadduu PhD soo qaatay hadduu waxa soo qaato afuufmo oo mooda inuu bini aadamnimadii isagu dhaafay iyo meelaha la isku wacdiyay waxaas ay la yar tahay ma aha sax saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay xataa gaalka qul innamaa acidukum biwaaxida gaalo waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi hal midaa idinka laydinku waaninaya ilaa gaal baa haydeene an taquumuu lilaahi mathnaa wa furaada uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid idinka mid baa laydinku waaninaya waa maxay gaalka midka lagu waaninayaa mid ama laba isu taaga saa doontaan inaad fakartaan waa ka fakartaan risaalada iyo rususha iyo ambiyadana la soo diray ma bisaaxibikum min jinna dee nebi iyo nin waalane miyay isu egyihiin nebi iyo nin waalane ninka waalane waa nimaan xikmad ku hadlayn waa nimaan wax saxa sheegayn waa nin arrinkiisu qasan yahay nebina waa acqalu nnaas waxay dhahdaan qofka nebinimada sheegtaa laba mid unbuu noqdaa imaa akdabu alkaadibiin inuu yahay iyo inuu yahay asdaqu saadiqiin hadduu dhab yahay dee waa ku run sheega kii u run sheega badnaa hadduu been yahayna waa maxay ku been sheega kii u been badnaa buu noqonayaa labadaa qof adiga ma iskaga kaa qaldamaya qofka dadka u beenta badan leh iyo qofka dadka u runta badan leh ma iskaga kaa qaldamaya hawmani imise miinis ama sababood baa jiro bini aadamka loo taskareeyo inuu run kuu sheegayo iyo inuu been sheegayo innagu dadka caadigaa baynu kala naqaanaa ninka beenaalaha iyo maxay ninka run sheegaha markaad muddo la dhaqanto midna baa kaa qarsoomaya markaa nebi kaama qarsoomayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa gaalkaa u baahan in la waaniyo ilmaha carruurtaa u baahan baa ilaahay leeyahy وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلهي القرآن كوحكا ورمى أن الله يدعى لقمان الحكيم وحكمة ربي السيئي حكمة ديسي وحلينو قصو نقليين نقول الله ينو شاقي انت مبكم إذا حكمة ديسي نقن كيو كلا نقم المهيسة أيا حكمة ربي نقينو سوقوري لقمان المهيسة وانين يبالي يدو كله ويليرهايجيو يا بني تصغير ويليرو لا تشرك بالله إلهي هو شريك يالين إلهي وحق الله مانين وايو إن الشرك لظلم عظيم شرك هو ظلم وين إذن قال بالوانية وعرور بالوانية ودمر بالوانية واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن بإلهي كبدي من كذا كم دحتاجته وروانية با إلهي سبحانه وتعالى قال دايا منافق بالوانية أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا با إلهي منافقين إلهي كورمي أيا ربي وحولي نفاق وذاك جيسو وواني وواحد كنت هذا ورحال ديرو لفه دا قاده مجرم كان لوانيه جانجا يا مجرمك هشرن وكان هو جانجا محمر يوروا بني آدم مهما فعل وفعل بني آدم لماذا كما بحين إنسان وعد كما مارمو
sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa waid qaalat ummatun minhum lima taciduuna qawman ilaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun qola asxaabu sabtigii markay saddex qaybood u qaybsameen qaar dembigay ku dhaceen qaarna way waaninayeen qaarna way iskaga aamuseen kuwii aan waxbana waanin dembigana ku dhicin baa kuwii kale la hadlay waxay dhaheen lima taciduuna qawman ilaahu muhliku waar duul alla halaagaya maxaa ka waaninaysaan dabeetana waxay dhahdeen waxaanu u waaninaynaa laba sababoodba annagu inaannu badbaadno daraaddeed oo aan aakhira noloo qabsanin dadkan wax ma u sheegteen kuwa dhafarrada xirta iyo kuwa khamrada cabay iyo kuwa suuqa ku jira xilkayna saaran waa inaynu wax u sheegno isagu ama ha aqbalo ama ha diida isagay u taallaa laakiin inaga xilkayna saarani waa maxay waa inaynu waaninno waanadaynu waaninayno innaguna waa ku badbaadaynaa walacallahum yattaquun iyana la arkee inay alla ka cabsadaan imisaad aragtay culammadan tabliiqa ah oo intay boob galeen dad ka soo kaxeeyey imisaa aragteen mid khamrigiisii wata soo qabtay yani waa bashar mahmaa facal wa facal waa bashar basharna waana kama maarmo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu warramayaa waanadu inay ka mid tahay asaaliibta diinta loo faafiyo idcuu ilaa sabiili rabbik bilxikma waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih wa huwa aclamu bilmuhtadiin dadka ilaahay ugu yeedh baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mawcida xasanana dadkaad ilaahay ugu yeedhayso xikmad kula hadal waa macquulaad shay caqliga gelaya waxaad kaloo kula hadashaa baa la yidhi waano wanaagsanna u sheeg hadday dood noqotona doodaan xagxagasho lahayn dood fiican kula dood baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay baa og baa markaa laynagu yidhi biman dalla can sabiilih wahuwa aclamu biman ihtada dadka inta hanuunaysa iyo inta lumaysa ilaahay baa og adigu shaqo kuma lihid adiga waxaa ku saaran baa nebiga la leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka inaad u sheegto qur-aanku wuxuu inoo sheegay qaar ambiya wacdido wacdigii diiday oo leh sawaa'un calaynaa wacadta am lam takun min alwaacidiin waa iskaga kaaya mid inaadna wacdida iyo inaadna wacdin laakiin innaga waxaa layna yidhi in allaha yaamuru bilcadli waalixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi maxaa alle ku gebagabeeyey yacidukum lacallakum tadakkaruun ilaahay wuxuu idin farayaa baa layidhi cadaalad iyo samo iyo qaraabo xidhiidhin iyo xumaho a ka dheeraataan iyo munkarka waxa sharcigu diido a iskaga tagtaan iyo dulmiga oo aad joojisaan war rabbi waa idin waaninayaa baa ilaahay leeyahy yacidukum lacallakum tadakkaruun waa khudbad jimco kasta inta badan aayadda aynu maqalno ilaahay wuxuu leeyahy rabb baa idin waaninaya waxaana laydin waaninayaa lacallakum tadakkaruun ayuha alaxibba warkaygu wuxuu ku kooban yahay cid wal oo dunidan joogtaaba waanay u baahantay waxaad u baahantay inaad yeelato wakhti lagu waaniyo saxaabadii nebiga haweenkii baa nebiga u yimi waxay dhaha ilaahay rasuulkiisiiyow raggii baa nooga kaa xoog batay mar kasta rag baa kula jooga ee waxaad noo yeeshaa bay dhaheen wakhti annagana aadna waaniso dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey maalin gaaroo iyagana waaniyo maalin gaaruu la kulmay oo iyagana waaniyey waa xadiidkii uu tilmaamayey tii 3 ilmood ay ka dhintaan ee sabirtay in aakhiro xijaab naareed alla uga dhigayo qof dumara istaagto waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow tii labana ku dar wasnayni markay ku celcelisay ayuu nebiguna dhow goor ugu celiyey wasnayni nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa ogeed waana kama maarantid waana marnaba kama maarantid